هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميل walba aad joogtaan aad ayaan ii salaameynaa maalin dhaweyta waxaan nii soo gudbinay xaalad aad u adag ee ku sugnayd hooyo Xabiibo Cusmaan oo isla mar ahaantaasi aad arkaysaan oo qof aad u xanuunsana isla markaasina ah qof xanuunkeeda dhinacyo badan yahay daa tabar darre hayso nafaqa darre hayso waxay cunto aan haysan dhimarka laga hayo waxa haysa gabadheeda oo la yiraahdo Xaawo Maxamed Cabdi isla markaasina ah ayada Ilaahay ajri ahsanaad ka siiyay qofka kaliya daryeela Xaawo waxay haysataa 4 cunug oo isla mar ahaantaasi oo yar oo ayagana aan dhigan dugsi school midna halkan qol ay ku wada nool yihiin xaalad aad oo adag ah maamadan kamid tagi karto oo saan nii sheegnay waa maamo aad u xanuunsan videogeeni hore aan soo gelinay aad aragteen isla markaasina dad walaala oo muslimiin oo muxsiniin ah aan u soo gudbinay oo Soomaaliyeed aan ku niri bal hooyo iyo cidii garab istaagi karta jecel inay garab istaagto qof muslim ah oo daadana isla markaasina xanuunsan oo dhimarka laga hayo isla markaasina xaalado badan oo ka sheekeyn karin halkan aan ku arkay ay jiraan isla markaasina aad iyo aad macnaha u tabalaysan balse marka hore waxaan weydiinayaa walaashii Xaawo waxaad iiga warantaa carruurtaada midka weyn ima soo jira 12 jir waay waxaan ku weydiinayaa carruurtaasi midka u yar ima soo jira asagana 4 jir waay marag iyo dumar isku jira mise gabdhiyo wiilal waay waatay carruurtaasi wax ma jiraan waxbarasho aad wax barasho aad ma laha way awoodi waay even hatta dugsi quraanka ma dhigtaan wax ma dhigtaan dugsi school way joogaan waatay waxa warbixintii hore aan halkan ka gudbinaynay dadku waxaan ogeysiinay in ay macnaha muhiim ahaan in anaga nala soo xiriiraan balse telefoonadaada aan halkan soo gelinay inkastoo adiga lambaro toos ah lahayn laakiin dadku ugu dhow lambaradooda aan soo gelinay dad ma jiraan kula soo xiriiray hal wiil ila soo xiriiray kaliya hal wiil oo $50 ii soo diray halkaas wiil bas qofka la markin halkaas wiil aragtay waa tahay Ilaahay ku garab istaago walaasheen macaan waxaan jeclahay maanta halkan anaga laftirkeena dadna soo wakiishay aan kaaga wadnaa lacag marka gabdho walaalahayn oo dalkaasi Mareykanka joogo qaasatan gobolka loo yaqaan Columbus Ohio gabdho muxsiniina magacooda in la sheego diideen waxay ku soo dhibeen lacagtan $50 waay lacagtaas waa aragtaa walaashay ma iga haysataa $50 ay haysataa gabar kale oo ardayad ah oo Aisha la yiraahdo inaan aad u yara ayadana oo joogta isla Columbus Ohio lacag $30 ay waxay kugu soo dirtay M-Pesa ayadana iga tirso walaashay macaan lacagtaas iga hubi shukran waa ka haystaa lacag $80 ma iga haysaa waa tahay Ilaahay waxaan ka baryaynaa qoyskan aad iyo aad xaaladiisa u adag tahay ilmaha ma jeclin inaan soo gudbino muuqaalkooda balse waxa halkan ka aragtaan hooyadii iyo gabadheedii oo waxbarasho ilmaheediina aadeynin oo isla markaasi shaqo ayadii aadi karin oo aad u tibaalaysan waxayna ku nool yihiin xaafadda Islii waxay ku nool yihiin qaasatan jidka 5 Street ku xiga la yiraahdo Gololey Street ay ku nool yihiin ilmahaasi aad ayay u dhiban yihiin hooyana waa aragtaan xanuunkeeda maalin walba iga waran hadda xaaladda hooyo walaal iska liidata daawadii oo dhimirka u socoto oo madaare waliin wax isbedel ma dareemin maalin hore markaan u sheegan waxay dhaheen haddii daawada wax u tarweys cirbada loogu bedelayaa waatay maalinkii xafaayad ma qaxba isticmaashaa 4 xabbe maalintii la isticmaalo way jaraysaa way goynii 4 xabba isticmaala maalintii 4 xabba xafaayad ودريمي كرتان إذا دبك الشيء أصلا مركز قفكا حفايد الله حرية أو دي مركلا دبات له ستوا جدا مركا وحنجعلنا إن شاء الله إن لسه حريرتان هدي سومال نمجرتو هدي جيران دد محسنين أو قلب الدقنا يجرو هدي جيران دد هويين أبوين في عن أي جيران دلين يرفع عن ما أنتو حنسوق بيننا قبل وغير أو أرضية دا ذينا أي وشكتي إلا أي 16 ilaa 15 igu sheegtay ardayda oo ayadana markii videogi hore ay daawatay ka danqatay hooyadan una soo gurmatay waxaan rajaynayaa dhamaantiin inaad u kacdaan
hooyadan iyo ilmahaas yar ee maanta mustaqbal la-aanta ah, dugsi aan aadin, iskuul aan aadin, waxbarasho aan haysan, isla markaasina aad arkaysaan ku dhibaataysan xaafadda Islii, waxaan jeclahay inaad usoo gurman doontaan insha Allah. maxaad ka codsan lahayd ummadda Soomaaliyeed? waxaan ka codsanaa walaalihii kule inay isaacidaan insha Allah dhammaantood inay ku saacidaan, annagana insha Allah garabkaaga nahay walaashay. mar walbana waxaan ku leenahay insha Allah waan ku garab taagnaan doonaa. hooyana Allah caafiyo, ilaahay ayaa caafimaadka haayo, ilaahayna kugu garab galo insha Allah. insha Allah walaalo mahadsantiin. jazakallahu. insha